السلام عليكم، عيد مبارك. soo dhawaada. Maanta waxaan sameynaa buskut oo ciid lagu talagalay. Marka intaan hadda miiska loo baahan yahay daawasho. Marka waxaad u baahan tahay 2 xabo ukun, 4 qaado subag, 3 shukulaato oo u dhigan 300 gram, vanilla sugar iyo baking powder, condensed milk waxa waaye caanaha culus, qumbe, nus bakeeri warango, nus bakeeri bur, 2 xabo ukun, sonkor iyo powdered sugar. waxaan kaloo isticmaalaynaa kuwan waxa waaye fondant. waan ku sharxinaa hadhow waad arkaysiin laakiin waxaan sameeyo. marka waxaan ku bilaabaynaa inaan subaga dhalaalino. kadib inta kale waan isku qasanaa, laakiin ukunta xabadaan ka isticmaalinaa, midda kalena jaalaha le ka isticmaalinaa. marka subaga waan soo dhalaaliyay. subaga waxaad iska ilaalisaa inaan aad u dhalaalinin maadaama ukuna meesha ku jira. haddii kale ukunta way karsamaysaa meesha dhexdeeda, wax walba way ka halaabeen. caadi ahaan waxaan isticmaali jiray mixerka, laakiin hadda sonkorta caadiga ma ku jiro, waxaa ku jira powdered sugar. kaasna qaado caadi ah ku qasi kartaa wax walba. halkan waxaan isku qasayaa burka, warangada iyo baking powderka. hadda waxaad arkaysin xataa inaan nus bakeeri waranga ku daray maadaama jileec ay wax yar noqotay. markaan waxaa fiican inaad 1 bakeeri waranga iyo nus bakeeri bur iyo baking powderka aad ku ridid. baking powderka waxaan ka isticmaalay bacdan haafkeed, waxay u dhigantaa qaadayaasha yaryar shaaxa lagu talgalay. sidaan idiin sheegay nus bakeeri waranga aan ku daray. wax walba aan isticmaalay iyo intaan isticmaalay, laakiin hoos ayaan kusoo qoraya insha allah. meesha buskutka aad ku fidinaysid waxaa muhiim ah inaad bur ku shubtid siday adi xataa fudeed ku noqoto. buskutka aad u dhegdheg badan yahay. buskutkana kana u isticmaalaya. buskutka waa kan. foornadaan ku ridayaa 10 ilaa 15 daqiiqo 180 degrees. kan waxaan ku sameynayaa indhaha iyo marka waa arkaysi, laakiin waxaan ku wado walaalka yarna way la joogaa, way caawinaya. هذا waxaan sameynaynaa madaxa. waxaan isticmaalaynaa 1 bakeeri oo condensed milk
iyo hal bakeeri oo qumbe. markaad si fiican isku walaaqday ayaad sidaan oo kale u kuusaysaa. buskudka waa kan 15 daqiiqo ayuu foornada ku jiray marka in xoogaa u daaya laakiin sida u qabooba. hadda waxaan sameynaynaa shukulaatada cad ayaa dhalaalinaynaa waan dhex gelinaynaa buskudka kadib marka ugu dambeysana sharaxaadkii ayaan kor saaraynaa. marka shukulaatada waan jajabinay hadda waan dhalaalinaynaa waxaan isticmaalaynaa xamar digsigan yar biyo ku shubnay kanaan ku kor saaraynaa marka dabkaan saaraynaa sidaana u dhalaalinaynaa. shukulaatada waan soo dhalaalinay hadda waxaan sameynaynaa buskudka ayaan ku dhex ridaynaa waan ku dhex walaaqaynaa kadib halkanaan saaraynaa. kuskuuskii cad aan qumbaha iyo condensed milk ka sameyna waxay noqonayaan madaxa. indhaha iyo afkan waan sameynay indhaha afkaa kor saaraynaa marka ugu dambeysana buskudkaan kor saaraynaa. waa idin tusaa laakiin waxaan ka wada. marka waa kuwan saxan kalaan saaray waxaa ka haray lugaha yaryar inaan saarno yarduun. waa mahadsantihiin waa inoo fideoga dambe insha allah.